in ka badan 15,000 oo nooc oo kheyraad kala duwan ah ayaa ku jira biyo-badeedka Soomaaliya sidaasina waxaa sheegtay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ha yeeshee in badan oo ka mid ah kheyraadkaasi oo isugu jira noole iyo noole ayaa ah kuwa dayacan oo aan laga faa'iideysan sida uu qabo Maxamuud Maxamed Axmed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga badaha kheyraadka Soomaaliya kheyraad ku taqaano waxaa moodaa in Soomaalidu ay wada haystaan kalluunka inuu yahay laakiin waxaa jiraan noole kale oo badda ku nool Soomaaliyana ay maaragtay hodan ay ku tahay laakiin aqoon darrada isaana waysa in barto ama laga faa'iideysto marka noolaha laga tago waxaa jira batroolaa jira laakiin aqoontii sameeyay halkani waa xeebta sugunta Liido ee magaalada Muqdisho xilli hore subax kasta waxaa halkan ka baxa dooni yar oo soo jalaabta kalluun oo kaliya laakiin waxay og yihiin in kheyraadka baddu uusan ku koobnayn kalluun xillidan oo kale aan baxnaa alxamdulillaah rabbil caalamiin kalluun baan soo qabanaa marna waa imaanaa marna waa soo daahnaa ma garat si fiican kalluun maana maxaa kaloo soo qabanaa libaax baan soo qabanaa kalluun baan soo qabanaa wax kale badda kuma jiro Soomaa libaax iyo kalluun baa badda ku jiro يعني معدنتي أرجوتة قلبي كون فاديسن معينه لكن ملاك أنا اسكت قادنا سوق كمان كملاك أنتم نوجي على ماشى كيف سنة دونك والله هرمر أنا هرمر كاس مجارن أنا جي أبولي رفعت كجرنا هرمر كاس مجارن بدلنا عكست الله وشقيستا وصل الله وشقيستا رجوستا الجابا وحال جالا وحلا يدوش الجالا وحيال بدنا جيران أول جالا لكن أنا هرمر كاس فيلم مجارن أنا هبينكي يحاس كان قاتنا بدنا نفوت إحنا هبينكي مالتي سام بحنا الصبح يا إمانا xilliga hadda xagaaga lagu jiro badxarinkan maalintii malaayigan gaagaadna xilligan waxaa jira dad badan oo u dalxiis taga xeebaha dalka kuwaas oo sheeda uun ka egta kheyraadka dahan ee badda aad ayuu jawigu u macaan yahay inta badan waan imaadaa waliba xilliyada xagaaga ah ama roobka xagaaga yarka uu da'ayo waan imaadaa inta badan waxaan ka soo baxay shaqadeyda waxaas dhaa xilligan waa 12 saac meelahaas waxaa dalxiis u tagtaa xeebta Liido si aan xeebta Liido oo aan u imaado nafsadeeda aan u raaxeeyo ama aan u qanciyo noocyo ka mid ah kheyraadka ku jira badaha waddanka waa laga faa'iideysan jiray xilligii ay jirtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya laakiin waxaa hakadgeliyay burburkii ka dhacay dalka sida uu sheegay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi سأولا سعوديد هل حكومة بودن كودن وقت كتلين سي مركانا واجاس واحد شيء ورشدن بدن وكلون كاسماء يكويالين حاجة لاس قري ملا بدن بيكويالين مركا ورشداس كلون بدن بكسو بيشرو لا جري شري دخل حوق لا ودك أنا كسو جري شري مركا هذا ورشديه دول كيودن هذا تكتيد وأنكي كلها وسيرة كاسماء يكيم وحن سوار إن ورشديه يودن يدول كيودن واباي ولكن ولي ماشي ويالا مركا dadka Soomaaliyeed qaarkood oo aanan aqoon badan u lahayn noocyada kheyraad iyo iyadoo aanay jirin waxyaabo badan oo u fududeyn lahaa oo agabku ka mid yahay in laga faa'iideysto ayaa sabab u ah dayaca kheyraadka badda Soomaaliya wasaaradda kalluumaysiga iyo dawladda Soomaaliya waxaa la gudboon already talada aan siinayay ummadda Soomaaliyeed oo dhan in ay qayb ka qaataan oo muxuu ahay ka faa'iideysigaas ilaahayna nabadna siiyo ka faa'iideysigaasna ay ama shaqaalahooda ay u tababaraan qaabka badda looga faa'iideysan lahaa haddaba ma jira qorshe ay dawladda Soomaaliya ka leedahay horumarinta ka faa'iideysiga kheyraadka badda ugu horeysa saad la socotid waxaa loo baahan yahay inaad haysatid qalabkii aad maaragtay kalluunka kula soo bixin lahayd dooniyihii baa loo baahan waxaa loo baahan yahay qalabkii lagu qabanayo kalluunka waxaa loo baahan yahay in xeebaha laga sameeyo meel warshado oo kala oo maaragtay marka kalluunka la soo qabto lagu process gareeyo ama lagu jarjaro kalluunka maaragtay madaxii inta laga gooyo la hagaajiyo waxaa loo baahan yahay qaboojiyaal baa loo baahan yahay waaweyn oo containers oo xeebta yaala kalluunka oo ah nooc kheyraad ee kaliya ee dadka Soomaaliyeed ay ugu isticmaalka badan yihiin ayaa dadka soo jalaabta iyo kuwa ka ganacsadaba waxay sheegeen inaysan jirin meel lagu kaydiyo taasi ayaana noqon karta caqabad kale oo hoos u dhigta ahmiyadda kheyraadka siina sahashada Ciise Muhiidiin Macalin Cabdullaahi SNTV Muqdisho.